شعب كوين دلاء وحن آدي آدي ما هالعليا سودوين تقرح رمضان ما تعلق كذا عضي يقول سودوين إنه وحويان مدحويننا آدي آدي بنقول ما هالعليا وجور قابن مدحوينها جمهورية الصومالي الآن أمباسطور محمد أبو علي يوفد بلارني وهجامين يو إمانتا بوغشة كوشوا قبل كأوضل مدن مدحوين كوسو نبو قبل كأوضل دقمدي بورمي إيه دماش عبي وينه غير أوضل ومانتا سودوين هذا هل كانوا صوبنا بحي مدن مدحوينه مانتا ومدح هل كان يسوق بحدي هل كان يسوق تمي إلى يبورمي إلى هل كان مدوي سيستا شعب وينه غير أوضل waxaana mideeyay hal mid baa mideysay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudnaanta koowaad ee maanta qaranka uu ku leeyahay iyo maanta dhamaystirkii iyo qaramayntii ciidamadii madaniga ahaa ee maanta jamhuuriyadda Soomaaliland haddaanad midaynin maanta Soomaaliland si ay u ekaan leyd aan la garanaynin baa maanta isu soo mideeyay inay kaaga mahad celiyaan ku bogaadiyaan kusoo dhaweeyaan mudana madaxweyne socodkaagii ugu horreeyay oo ku timaado iyo qodobka koowaad oo ah shaqadii quruxda badnayd ee ka qabatay bariga Soomaaliland ee qaramayntii ciidamadii madaniga adu bedeshay ciidan qaran nabadayntii ceelaf weyn oo muddo dheer afar madaxweyne soo martay oo maanta ilaahay kugu soo guuleeyay ayaa banaanbaxani Soomaaliland meel ay joogtaba madaxweyne waxay go'aansatay arinta iyada inay ku tiraahdo mahadsanid madaxweyne gobolku waxay ku faanayaan tallaabooyinkii aad qaaday waxa kale oo mahadnaqaynaa madaxweynaha kugu karaameeyay xilkii dalka qaybtii u badnayd inuu ku dhiibo asaga ayaanu mahadnaqaynaa guusha ayaa isagaa kula leh waxaan rajaynaynaa guul fiican baad gaadheen allah ina khayro madaxweynaha Soomaaliland allah khayro Soomaaliland allah khayro madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland maxamed cabdi abu cali ilaahay khayro daweeyow soo dhawow daweeyow waan ku salaamaynaa waadna dawayso Soomaaliland waad dawaysay adiguna dawow aad bay farxad noogu tahay inaan maanta halkan idinku nimaadno wafdiga ballaaran oo hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka qaranku oo aanu idin kala qayb galno xafladda 18 May aad iyo aad bay farxad noogu tahay muddo 3 bilood waxaanu ka shaqaynaynay gobolkii awoowayaasha ee gobolka Sanaag maantana waxaanu doonaynaa inaan kala qayb galno gobolkii aqoonta xafladda 18 May Soomaaliland ha noolaato idina noolaada aad dalka intii lagu jiray bariga dhibaatooyinkii ka taagnaa ilaahay wuxuu ku soo guuleeyey madaxweyne ku-xigeenkeena maxamed ilaahay isagana inuu jisa ka siiyo ugu duceeya waxaad kalood ugu ducaysaan hawsha isaga iyo intii la jirtaba ay soo qabteen ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ugu yahay hogaamiyaha in ilaahay dib waxba aan uga soo celin sida ay ugu soo dhameeyeen ay ugu gasho ugu duceeya waayo sida waxaan u leeyahay Soomaaliland ma jirteen haddaan awdalaana ahayn tiirka dhabta ah mirka dhabtii taa weeyaan tiirka dhabta ee Soomaaliland waa gobolka awdal maanta waxaan ku nimid inaan iskala qayb galno xafladda 18 May alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay baa mahad iska leh soo dhaweyn wanaagsan baan kala kulannay dhammaan idinkoo jooga oo ilaa 8 halkaa noo fadhiyay aad baan idinku mahadcelinaynaa dhammaantiin insha Allah tacaala aad iyo aad baad noo karaamaysan iyo wafdiga meelaan taaganay meel ka saraysa dhigteen Allah idin karaameeyo maanta waa salaam ducaanu idinku nimidnay waa idin ducaynanaa annaga noo duceeyaa salaam baanu ugu nimidnay gobolka ilaahay idinkii wixii kalena waynu iswarsan doonnaa aan isu ducayno waxaa keliyaan ku dardaarmayaa dadku waxay wax ku qabsadaan waa midnimo waxayna qabsanna cidiinoo qaban mayso alla isku duubnaado anceedku alla taagan yahay hadalku waxba sii dheerayn maaye Soomaaliland ha guulaysato gobolka hore hawlmaro ilaahay waxaan rajaynayaa
Somaliland midowdo waxaan aad uga xumahay arrin yaroo daraad ka dhacday magaalada Burco intii ku dhimatay Allah u naxariisto intii ku dhaawacantayna Allah uga gadhayo waxaan leeyahay dadweynaha Somaliland beelkan joogaanba midnimadeena aan ilaashano wixii aan ku qaban haddii wax yimaadaanna wada hadal iyo si nabadaha lagu dhameeyo alla iska ilaaliyo wixii keenaya dhibaato dadka ku dhintay soo noqon maayaan yaan dad qofna dhimashada ayo yaanu dhaawacay naga imanin waxaan hadal ku dhamayn karano ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa in ilaahay samada inoo irmaaneeyo waa waqti kulul aad iyo aad baan idin salaamaya dhammaantiinba